kusimaha ra'iisul wasaaraha ahna ra'iisul wasaare ku-xigeenka xukuumadda mudane Mahdi Maxamed Guuleed Qadar arrimaha kulanka looga hadlayaa waxaa ka mid ahaa amniga qaranka mowqifka Soomaaliya ee arrimaha khaliijka miisaaniyadda 2018 iyo arrimo kale ugu horreyn wasiirka amniga gudaha ayaa golaha siiyey warbixin ku aadan arrimaha amniga sheegayna in xaaladda amnigu ay soo roonaanayso isla markaasna hay-adaha amniga ay laba jibaarayaan howlgallada xasilinta shacabkana laga codsaday inay hay-adaha amniga ku gacan siiyaan si dalka loo nabadeeyo maanta bacdama ay tahay 21 Sebtembar ahna maalinta nabadda adduunka golahu waxay hoos ka xariiqeen ahmiyadda nabadda u leedahay dalka Soomaaliya isla markaana ugu baaqeen shacabka Soomaaliyeed in nabadda loo ilaashado horumarka dhanka amnigana loo baahan in la wada xajisto kusimaha ra'iisul wasaaraha ahna ra'iisul wasaare ku-xigeenka ayaa golaha wasiirada u sheegay muhiimadda ilaalinta sharciga iyo nidaamka dowladeed kadibna golaha wasiirada iyagoo tixgelinaya xaaladda dalka ku sugan yahay ayaa waxay isla garteen arrimaha ku aadan muranka khaliijka ama wadamada carabta arrimaha soo socda kow golo waxay si adag u ayideen mowqifkii dowladda federaalka ee bishii Juun 2017 ee qeexayay in Soomaaliya door dhexdhexaad ka taagan tahay muranka wadamada khaliijka qaarkood una aragto in khilaafka jira lagu xalliyo si nabadgelyo ah oo ay walaaltinimo iyo diblomaasiyad ku dheehan tahay labo dowladda federaalka Soomaaliya waxay ku guuleysatay wada shaqaynta dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada xubnaha ka ah dowladda federaalka iyadoo qabatay 2 shir 6 bilood oo ugu dambeysay taasoo ay muhiimadu ahayd ka wada shaqaynta xoojinta amniga iyo midnimada qaranka saddex sida ku cad qodobka 54 ee dastuurka ku-meelgaarka ee Soomaaliya dowladda federaalka oo keliya ayaa awood u leh go'aan ka gaarista arrimaha dibadda difaaca muwaadinimada socdaalka iyo siyaasadda lacagta afar Soomaaliya weligeed doorkeedu wuxuu ahaa inaynan wadamo walaalo ah lala kala safan oo mar walba laga shaqeeyo wadajirka wadamada carabta afrika iyo kuwa islaamka ah haddaan tusaale usoo qaadana doorkii Soomaaliya ee heshiiskii Camp David ee dhammaadkii 70-meeyadii wuxuu ahaa in Soomaaliya ay diiday in xiriirka loo jiro dalka Masar taasoo keentay in markii dambe ee wadamadii carbeed heshiiyaan go-aankii dhexdhexaadka ee Soomaaliya qaadatayna noqday mid lagu ammaanay sidoo kale go-aankan muranka wadamada khaliijka qaarkood ee golaha wasiiradu maanta mar labaad ayiday waxaa soo dhaweeyay shacabka Soomaaliyeed meel walba ay joogaan iyo weliba beesha caalamka ugu dambeyntii golaha wasiirada ayaa warbixin ka dhageystay wasiirka maaliyadda ee ku aadan miisaaniyadda 2018 iyadoo la isku raacay isu diyaarinta iyo habraaca nidaamka maaliyadeed ee keeni kara isla xisaabtan hufnaan iyo maamul wanaag dhammaantii wax go'aan ah oo laga soo saaray ma jiro tusaale madaxweynaha koonfur galbeed oo kale wuxuu si cad u sheegay inay taageerayaan go'aanka oo Sacuudi Carabiya ku taageerayaan xukuumadda Soomaaliya iyo madaxweynaha ugu horeeyay oo shaaciyay in arrintaas dowladda Soomaaliya warcad ay ka soo saartay marka si cad oo madaxda dowlad goboleedyada fariimo loo diraayo ma jira oo ku saabsan in haddii tallaabo kale ay qaadaan wax laga qabanaayo anooday go'aankii inaan aqriyay waxaa ku jira dhammaan